raashinkaas oo ka kooban raashin cunta oo 350 qoysa iyo qarbid biyo oo qaadi doona 8 foosto oo biyo iyo 500 oo ka kooban caawa ah dadka la siin doona hadii la yiraahdo iyo dawooyin aad u muhiim ah oo lagu wareejiyay saakeen isbitaalka gobolka oo xarunta ay ka jireen waxa kale oo iyaguna insha Allah muddo 7 halkan ka shaqeyn doona dadka biyaha u baahan ama haraadan booyad loogu talagalay inay ka shaqeyso gobolka Maroodijeex iyo gobolka Awdal oo dadka kolba meeshii biyo looga baahan yahay ay ka waraabin doonto waxaynu ogsoonahay dhamaanteen dalka waxa ka jira abaara adag aad iyo aad u culus Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ugu jirtaa xaqiiqatan dadaal dheeraada waxa loo magacaabay ogtiin guddiga taakuleynta qaranka oo wasiirada iyo ay ku jiraan ganacsatada culimo si dadka wax loogu qaban lahaa saaka waxaan joognaa gobolka Awdal laakiin guddidu waxay joogaan baran bay joogaan oo lagu soo guuray waxay ka qaybinayaan shalay ka qaybinayaan raashin gobolka marka hadii la dhaado Boohoodle magaalada Boohoodle iyo wulb bay ka qaybinayeen intaas oo dhan waxa loo qaybinayaa ama dadka loo gaarsiinayaa si dadka wax lagu taabiilin lahaa ama wax lagu qaban lahaa sidoo kale waxay wasaaradda caafimaadka iyo guddiga taakuleynta qaranka ka wada shaqeynayaan hawlaha caafimaadka xarumo ayaa jira dadka xanuunsan loogu talagalay oo ka kooban meelaha xuduudaha waxa kamid ah xarumaha hadii la yiraahdo oo shaqeeyay doonta magaalada Boorama Faraweyne Belegubadle Labi Sagaal Xaaji Saalax hadii Boohoodle iyo Beledhi inahaas oo dhan waxa loogu talagalay sidii dadka xanuunsanaya ama cudurrada waxyaan looga qaban lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay abaartu naga dul qaado ilaahay waxaan ka baryaynaa roob degdeg inuu siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmadiisa naxariiska inuu noo furo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu khayraad gudgina siiyo cirka ilaahay noo furo dhulka ilaahay noo barakeeyo anna waxaan weydiisanaynaa shacabka ka baryaynaa in hawlahan ku jirno dawladda kala shaqeynano dawladda u taaganay dhamaanteen ilaahay noo fuday dhamaanteen si gaar ah waxaan ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xaqiiqatan oo guddiga ka tirsan oo maalin baad arkayso iyadoo meel taagan oo u qaybinaysa dadka u gurmanaysa oo الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا إله بمهد له مهد الله كسوك وحال حلقة نقول مهد علينا وسيرة مالية سمسم عبد آدن يو تيم كلا الصعدة يوسو قرمدي قبل كي يدق مذبه رنا هانتي وسير آدم كوجو مهد علينا أديقة يسيف كلمة أتسوق كسيسين إسبطال كي يدتك حنون كهالي ومد لو بهنا وأنا مد وقت جديد كنت ردنا وسردي لفظ بركواحد وضن كواحد هاوشاوين إد حيسو يولي بهاوش هذه كبحسنا وأقول وسوهيتي سمسمنا وحي عدين ستاس إني مر والبا هو يدو كان حريص بدنتهاي رجع قلب دووي بنكون رجينا أفريل إحنا كرتون دووينا يو بابورتا bustayaal iyo gooyaal iyo mariyii kanaacada iyo baadiyo iyo caw wixii ay u baahnaayeen isbitaalku muddo ayaan ugu soo talagalay waxa naga caawisay iyaguna Save the Children runtii oo iyaguna alaabooyinka hayeen emergency-ga u hayeen markii hore kuwii ay wajaale ugu talagaleen baanu kala qaybinay badna halkan aanu siinay badna wajaale aanu dhigeeya marka alxamdulillah maanta halkan aad darano wajaale maanta xanuunku ku badan yahay dabeedna wixii gooyaal iyo bustayaalaha intii badan halkan aanu soo wareejinay waxaan jeclahay inaad naga gudoontaan wixii alaab aan idiin sidno wixii kalena aynu taladeeda insha Allah baahidu way badan tahay insha Allah halkaasaan noo soo gurmaday wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda oo ka mid ah xisaabiyaha guud iyo bahja oo maamulka waxaanu ka gudoomaynaa qalabka aad aragteen gobolkeena saynu indhaweydba aanu adla socoteen waxa ka jira shuban biyoodkaas oo runtii maalinba soo rita dad qiyaas celcelis aan 20 ka yareen laakiin waxaanu ku haynaa xakamayn saan idin sheegin waa xanuun xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adaha caafimaadku ay ku filan yihiin inay xakameeyaan horena waxa looga xakameeyay wajaale sida ay wasaaradda maaliyadda ugu gurmatay iyo wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadduba maantana insha Allah waynu xakamayn doonaa inaguna waxaanu ka gudoomaynaa qalabka wasiiradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan iyo waftigeega oo ka mid ah xisaabiyaha qaranka iyo maamulka gobolka iyo degmadaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa halkan maanta waxaan kala wareegnay oo gudoomiyaha gobolka igu wareejiyay deeqda ay Samsam nagu soo wareejeen runtii waxaan lahayntii waa gurmadkii ugu ballaadhnaa ee ina soo gaaray aad baan uga mahadnaqaynaa waanan mataqaanaa ka gudoomaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa inay wax badan inaga tagi doonto oo xagga xakamaynta shubanka inay wax badan inaga tagi doonto waxa kale ugu mahadnaqayaa in iyada halkan ay inoogu ballan qaaday in u diyaarino kitchen cuntoodii waxba loogu diyaariyo
oo iyadoo mas'uuliyadda qaaday oo mar laba baan taan uga mahadcelinaynaa hay'adda Safe iyo Children oo marar badan hore wax nala qabanaysay imikana deeqda ka qayb qaatay aad baan ugu mahadnaqayaa samsam intaan argeysa joogay toddobaad oo maalinta raadi wax la yiraahdo meel heblaye raashin la soo qabanaysa meel heblaye gargaar u tagtay meelaad marka iyada deewaan u ducaynaa ilaahay inta ajir dambiga dhaafo waana u mahadcelinaynaa gobol ahaan iyo degmo ahaanba runtii sida ay damiirkeegu inay sii joogto muddo yacni degdeg markay maqashaba ay soo damiirkeegu soo kacay ay soo dhaqaaqday ay soo guurtay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay samsamay jasaakallahu khayr ilaahay ka jaasaas iyo naqaynaa deeqda ay soo gaarsiiyeen walaalaheena tabalaysan ee soo guuray ay soo gaarsiiyeen oo 350 raashina qarbidkan aan gacanta ku hayo iyo anay 500 oo cawaa iyo booyadii anay gudida qaranka abaaraha oo la soo dirayo oo muddo iyadna halkan ka shaqaynaysa iyo dawooyinkii ay maanta u qaybiyeen dhakhtarka intaaba waan ugu mahadnaqaynaa laakiin waxaan leenahay noo soo kordhiyade noogu soo kordhiyo baan leenahay naguma file